kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Qodobada maanta barnaamijkan ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ballanqaadyo waaweyn u sameeyay saaxiibadiisii mucaaradka kadib kulan uu kula qaatay magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo loo ballanqaaday xil culus iyo Sheekh Shariif oo iska diiday jaga loo soo bandhigay. Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo fariin adag u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugana digay in uu dalka yeesho milkiile si la mid ah dawladdii madaxweyne Farmaajo. xog laga helay sababta keentay guuldarrada madaxweynaha maamulka Puntland Siciidan ee kursiga Villa Soomaaliya. maxaa ka jira in xildhibaanadii uu ku tashanayay ee ka soo baxay Jubbaland ay ku boodeen isla markaana ay u codeeyeen mudane Xasan Sheekh Maxamuud. qodobada kale waxaa ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hor yimid tallaabo ay qaadeen mas'uuliyiinta xilka ka sii degaysa ee jooga Villa Soomaaliya iyo cabashada Xasan Sheekh Maxamuud oo si degdeg ah looga jawaabay kadib markii uu shalay tagay madaxtooyada dalka iyo maamulka Galmudug oo amar ku bixiyay in la soo qabqabto xubnihii ahlu sunna ee laga adkaaday oo uu ku jiro hogaamiyahoodii Sheekh Shaakir. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax Arbaco ah 18 bisha shanaad ee May sanada 2022 barnaamijkan si sheer gareeya oo u sii gudbiya saaxiibadiina kale ee idinku jira baraha bulshada. aad iyo aad ayaad u mahadsantiin. aynu ku bilowno wararkeena. madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ballanqaadyo waaweyn u sameeyay madaxdii markaasi ay iskala tirsanaayeen mucaaradka markaasi uu ku guuldareystay doorashooyinkii dalka ka qabsoomay madaxtinimada Soomaaliya oo uu isagu markaasi ku soo baxay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay saacadihii la soo dhaafay raggii markaasi ay isla soo jabhadeeyeen ee ay dagaalka adag markaasi la galeen madaxweynaha xilka markaasi ka sii degaya ee laga adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana uu Xasan Sheekh sheegay in marnaba uusan ilaabi doonin halgankii adkaa ay markaasi isla soo mareen. madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana xalay tacasuumaad u sameeyay qaar ka mid ah saaxiibadiisii ay ka wada tirsanaayeen golaha midowga murashaxiinta mucaaradka kuwaas oo isla soo jabeen. Xasan Sheekh oo 15 bishan loo doortay madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay saaxiibadiisa siyaasadeed ayna ka wada tirsanaayeen murashaxiinta mucaaradka sida ay gacanta uga wada geysteen guusha uu gaaray. wuxuuna tilmaamay in arrintaasi uu abaalgud ka samayn doono. madaxweynaha ayaa murashaxiinta uu la kulmay u sheegay in la'aantooda uusan guul gaari lahayn, waxa uuna ku ammaanay sidii ay u garab istaageen intii ay doorashada socotay iyo sida ay uga dhabeeyeen heshiiskoodii ahaa in dalka hoggaankiisa isbeddel lagu sameeyo meeshana laga tuuro madaxweyne Farmaajo. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay in markaasi ballanqaadyo uu u sameeyay xubnaha qaarkood sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo la filayo in markaasi loo magacaabo xil dhinaca markaasi UN-ka ah amaba qaramada midoobay, halka sidoo kale Sheekh Shariif jaga loo soo bandhigay uu markaasi iska diiday. Sheekh Shariif ayaa lagu soo waramayaa inuu aad u niyad jabsan yahay isla markaana uusan filaynin doorashadii uu ka qayb galay natiijada uu markaasi ka helay oo ahayd natiijo aad u yar isla markaana keentay inuu markaasi ku haro wareegga koobaad oo Kheyre ayaaba ka saameyn batay. murashaxiinta ayaa qaarkood ku haray wareegyadii koobaad iyo labaad waxa ay codadkooda xildhibaanadii taageersanaa u wareejiyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taa oo horseeday in madaxweyne Farmaajo si weyn markaasi looga adkaado oo uu ka adkaado Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ku guuleystay jagada madaxweynaha Soomaaliya. waxaa qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa fariin adag u diray madaxweynaha cusub ee la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uuna markaasi uga digay inuu sameeyo tallaabooyinkii ay markaa ku fashilantay dowladdii Farmaajo. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa markaasi madaxweynaha la doortay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday in uu dalka ka ilaaliyo waxa loogu yeero milkiile isla markaana go'aanka lagu maamulayo dalka uu isagu qaato. ra'iisul wasaaraha oo la hadlayay markaasi warbaahinta VOA waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay doorteen baarlamaan ayna jirin cid si gooni ah u keensatay, wuxuuna ka dalbaday in go'aan kasta oo la qaadanayo uu u ekaado amaba uu ku ekaado isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo cidda
markaasi xukunka la joogta. hadalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa kusoo aadaya xilli 5tii sano ee lasoo dhaafay uu dalka madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo ay dad badani sheegayeen in Fahad Yaasiin oo wax badan maamulayay hay-adda NISA uu ahaa milkiilaha dalka si hoosena uu markaasi u maamulayay, iyada oo arrintaasina markaa aad loogu xanto marka madaxweyne farmaajo in go'aamada qaar uusan lahayn, hawshana uu Fahad Yaasiin maamulayay, isaguna uu markaasi madaxweyne un sheeganayay. dhinaca kale waxaynu eegaynaa waxyaabihii keenay in codadkii Jubbaland uu ku tashanayay Dani ay u wareegaan Xasan Sheekh Maxamuud. murashaxiin la islahaa waxay ku soo bixi doonaan wareegga koowaad ayaa dib u dhacay. heshiis ay horey u gaareen madaxweynayaasha Puntland Siciid Dani iyo Jubbaland Axmed Madoobe ayaa habeenkaasi buray markii qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland uu soo saaray Axmed Madoobe ay ugu shubeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. tallaabadaasi oo filan waa ay ku noqotay Siciid Cabdulaahi Dani oo tiradii uu filayay ku hungoobay. dhabarjabka Siciid Dani uu kala kulmay Axmed Madoobe ayaa dhalisay caro iyo in uu Siciid Dani ku eedeeyo madaxweynaha Jubbaland in uu balantii uga baxay. waxaa intaasi dheer in 6 ka mid ah xildhibaanadii Puntland ay codkooda siiyeen Xasan Sheekh Maxamuud. xog lagu kalsoon yahay oo aynu helnay ayaa sheegaysa in Axmed Madoobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu saacadihii dambe ee ololaha doorashada dhex maray heshiis aan weli faahfaahin markaasi laga helin. Axmed Madoobe ayaa aad u doonaya in shakhsi ka soo jeeda beeshiisa loo magacaabo ra-iisul wasaare, hase yeeshee ma cadda haddii taas uu aqbalay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu yaqaan inuu yahay qof aan go'aanadiisa siyaasadeed saameyn lagu yeelan, keensan doonana shakhsi laga dhigi doono ra-iisul wasaaraha uu markaasi Axmed Madoobe doonayo. Axmed Madoobe ayaa xilka ra-iisul wasaaraha iman doona amaba la iman doona Dr. Maxamed Yuusuf Awdaahir oo hayb ahaan ka soo jeeda beesha ogaadeen jilibka cawlyahan. Dr. Maxamed ayaa u shaqeeya hay-adda markaasi qaramada midoobay. tallaabadan ayaa dab ku sii shidi doonta carada Siciid Dani uu ka qaaday tallaabada ay qaadeen xildhibaanada Jubbaland iyo guuldaradii uu la kulmay. guusha uu gaaray Xasan Sheekh waxay qayb weyn ku lahaa xildhibaanada Jubbaland iyo xildhibaanada Digli Mirifle iyo kuwa reer waqooyiga ah oo intooda badan u soo markaasi jabay dhinaca Xasan Sheekh Maxamuud si markaasi daaqada looga saaro madaxweyne Farmaajo oo hadda xilka ka degaya. dhinaca kale sida aynu ogaanay la taliyayaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa diiday qayb ka mid ah qoraal uu shalay baahiyay xafiiska madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo si khaldan markaasi u dhigay jagada madaxweynaha cusub. ereygii ku jiray qoraalkii ay shalay baahisay Villa Soomaaliya ayaa ahaa madaxweynaha dooran, taas oo sida ay noo xaqiijiyeen ila xog ogaal muran badan abuurtay markii laga soo tago in qoraalkan ugu horreyntii lagu baahiyay bogga Villa Soomaaliya. sidoo kale waxaa sidiisa u qaadatay oo baahisay warbaahinta dowladda. xubno ka tirsan la taliyayaasha madaxweyne Xasan ayaa la xiriiray kooxda warfaafinta madaxweyne Farmaajo una sheegay inay saxaan ciwaanka oo ay ka dhigaan madaxweynaha Soomaaliya, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh markaa lagu hor dhaariyay baarlamaanka waa madaxweynaha saxda ah ee dalka, kamana dhigna in uusan joogin Villa Soomaaliya in loogu yeero madaxweynaha dooran, sababtoo ah waxa uu fursad u siinaya madaxweyne Farmaajo in uu ka guuro. dhinaca kale wasaaradda warfaafinta ayaa howlwadeenada warbaahinta qaranka ku amray inay bedelaan ereyga madaxweynaha dooran maadaama uu Xasan Sheekh yahay madaxweyne sharci ah oo xilka loo dhaariyay habeenkii la doortay. qoraalkii ayaana durbo markaasi la bedelay islamarkaana si toos ah looga bedelay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaana shalay gaaray halka markaasi dalka looga arrimiyo markaasi Villa Soomaaliya, iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu madaxweyne Farmaajo halkaasi isaga guuro. ugu dambeyntiina taliska booliiska Galmudug ayaa soo saaray liiska 36 qof oo lagu raad joogo kuwaas oo loo haysto horinta dagaalkii ay Ahlusunna ku qaaday Dhuusamareeb. dadkan waxaa ku jira hogaamiyihii Ahlusunna Sheekh Shaakir iyo saraakiil sarsare. madaxa howlgallada booliiska ee ka howlgala Galmudug oo warbaahinta markaasi la hadlay ayaa soo bandhigay sawirada dadka la doonayo. dadkan la soo bandhigay ee lagu raad joogo ayaa u sheegay taliye Nuur in ay ku dhuumaalaysanayaan deegaano ka tirsan Galmudug, isagoo bulshada reer Galmudug ka codsaday in dadka ku jira liiskan ay booliiska la soo wadaagaan goobaha ay ku dhuumaalaysanayaan si sharciga markaasi loo horkeeno. sidoo kale dowlad goboleedyada dariska la Galmudug iyo dowladda federaalka ayaa bayaankan looga codsaday in ay ku garabsiiyaan maamulka Galmudug sidii gacanta loogu dhigi lahaa saraakiishan ka tirsan Ahlusunna. saraakiishii ee ku jirta liiska dadkan ay Galmudug doonayso waxaa ka mid ah Sheekh Shaakir Cali Xasan, taliyihii aasaasay ciidanka Ahlusunna Generaal
cabdulaahi xaaji diiri hambacoor gudoomiyihii hore ee dhuusamareeb cabdulaahi beenta taliyihii hore ee nisa galmudug gaashaanle sare cabdulaahi cabdi raagi iyo saraakiil kale oo sarsare. sidoo kale liiskan waxaa ku jira saraakiil badan oo horey uga tirsanaan jiray ciidanka dowladda Soomaaliya kuwaasoo dib ugu laabtay ciidanka u dagaalamaya ahlu sunna ee dhowaan uu Sheekh Shaakir ka aasaasay galbeedka gobolka Galgaduud. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war la mid ah intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.